السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ما أنتي باورك وأوجد بريجي هو بدو كسي السعودة إلهي هنجني شيء دلالك باور كان بريك ماله باور كان بريك له هنا كوفيد 19 هدانا الحوق إسكاق علم بريان نوجد شوك سنماي هدانا تلوين كسيدين وأنا قاضن من نوجد شوك سناي ما أنت وحرب عينان قضب عصب أنا حوق السعر قضب كاسنا وقضب كي علماء هل كان مالي وذا يتمد وأنا هذا يسكر رأسيهين لصوصاري لكن نصيب ضره aan hirgelin wuxuu hirgelin lahaayna waxa weeye hada dadkii baan qaadaneyn wixii laga rabay qodobadaas waxay ahaayeen dadka 50 sano ka weeyday waxa la yiri laga rabo masaajidkan yimaadaane gurigooda ha joogeen waxa la yiri kuwa imaanaya sajaayada soo qaateen gacmaha si fiican iskaga soo dhaqeen maaskaraha soo qaateen marka salaada la tukanayo hal kala durko go'aan kale wuxuu ahaa musqulaha iyo meesha lagu weysaysto in la joojiyo qof walba uu gurigiisa asoo ka soo weysaysto waxa ka hirgalay sayidku waxa maqlaysaa taqaarabu halkaan shay cali wajiis wuxuu nooga sheegay tabaacadu waa qodob meesha yaala haddii laga rabaa marka qodobkaas inuu xoojiyo anigu waxaan dhihi lahaa haddii waxaan codsan lahaa oo gobolka aan ka codsan lahaa gobolku magaaladaani degmooyin u qaybsan tahay waxay u qaybsan yihiin laamay u kala qaybsan yihiin in arrinkaas la xoojiyo weey arrinkaas hadaan la xoojin aniga waxaan ogahay masaajidada iyo dhow raggii imaamyada ka ahaa maanta kama aha kuwii adimi jirana maanta kama adimaan galab kastana waxaa maqlayaa jamaacada dad ka mid ah jirane hal la soo boqdo hal loo duceeyo qodobkaasi waa waxba anaga hadaan dhaqaatiirnahay waxba noo sheegayaa wuxuu noo sheegayaa in cudurku faafayo masaajidka ka dhex faafayo hadda marka waxaan codsanaynaa haddii dadku ayagu ay gara waayeen inay tilmaamihii culimmadii ugu sarreysay waddankan inay qaataan waa in xoogaa aan ku darno waa in dowladda hoose arrinkaas waxaan rajaynayaa inay garab naga siiso oo ay meeshaas shaqo ka qabato oo dadka galaya masaajidka ay sidaas loo sheegay oo tilmaamaha laga baxshay inay tagaan taas waa iga mid waan ognahay masaajidka dhalinyaro badan dhalinyaradu waxaan leeyahay dhalinyaro mustaqbalkii qaranka tihiin hogaamiyaalkii waddankaana tihiin biri noqonayay maanta wixii aad samayso oo aad ka qayb gasho ayaad biri adna isku dhaqaysaa beerta amaanta falasto ayaa biri aad guranaysaa hadda waxa laga rabaa haddii maanta caafimaadkaaga iyo caafimaadka gurigaaga iyo deriskaaga iyo waalidkaaga iyo qaranka aad ka fakartid qaran fiican oo caafimaad qaba aad biri hogaamin doontaa waxaad heli doontaa qaran fiican oo cilmigiisu aad u sarreeyo waxaad heli doontaa qaran fiican oo wax soo saarkiisu uu fiican yahay waxaad heli doontaa qaran fiican oo difaaciisu iyo xuduudadiisu ay sugan yihiin ayaad heli doontaa waxaad heli doontaa qaran caafimaadkiisu inta fiicnaaday cilmi baarista adduunka iyo dayaxada ku fakaraya ayaad heli doontaa laakiin haddaad maantay aad cudurkii noqotid mid ehel u ah oo faafiya oo aan taxadirin adigana ku saameynaya dad badanna waa saameynaya dadkii khibradda lahaa waa naga dhimanayaan waa naga baxayaan waxa isku soo hari doonta marka dadaan wada khibrad lahayn arrinkaasna arrin ma ahan aad ka shaqaysaan arrinkaasi waa inaad diidaan waa inaad maaskarada gashataan waa inaad social distancing iyo kala fogaanshihii aad samaysaan waa in gacmo dhaqi aad xoojisaan waa inaad gurigaaga markaad ku laabanaysid aad u taxadirtid war ilmahaaga arma u gudbisaa war armaad waalidka u gudbisaa inaa istiraahdo marka baska raacaysa waa inaa iska fiirisid oo tiraad baskan waxaa dawladdu tiri 10 qof ka badan ma qaadi karee 20 saarane nafteedii aan khatar gelin ee gadaal uga joogsataa iyo talaabooyin intaas ka badan oo idinku ay ga badisaan ya waxa la idinka rabaa inaad hormuud u noqotaan wacyigelinta maanta socda oo aad dhufayska koowaad idinku u gashaan difaaca cudurkan inuusan nagu faafin annagu kolba daalimayna inaan hadalno inaan tusaaleyno inaan hoga tusaaleyno hadda jeer runtii waxay tahay aan sheegno baabuurkan aan break lahayn dhalinyaro idinka jooji kara break idinka u noqon kara mas'uuliyadda aad leedahay qaado ninna ha ku xumayn dhaqanka ah
hebelaa warkaan wata hebel war ma wato hebel war wata male dan guuda isku kaaya keentay cudurkan haddaan rabno inaan ka adkaano oo aan hakinnana waa inaan dhammaanteen gacnaha isqabsanno nin kastuu yahayba iyo bulshada meesha uga jirtidba haddaad ganacsado tahay haddaad hooyooyin tahay haddaad gabdho tahay haddaad dhallinyaro tahay haddaad culummo tahay haddaad madax tahay haddaad majo tahay haddaad mutacallim tahay haddaad arday tahay meel waxaan u maleeyaa haddaad miidiya tahay waxaan u malaynayaa meel la isku daynayo male nin dhahaya maanta anaa difaac gaara ka haysta ma jiro waa kow qodobkaas waa qodob muhiima qodobka kale oo aan leeyahay waxa dadka waayeelka hal difaacan isku ogeey dadka waayeelka haddii awood loo leeyahay in qol la dejiyo la ogaado waxaan rabaa inaan idin sheego dadkii front line-ka cudurradan uga jiray oo dhakhaatiirta ahaa dad badanaa maanta ka jiran haddana intay is soo xirxiraan oo is soo duuduubaan asagoo sokor qaba asagoo dhiigkar qaba oo inta soo duubu front line-ka imaanaya shaqadii uu fulinaya dadkii uu gargaaraya haddana dhalinyaro adigu inaad tiraahdid marka anugu soo horumari maayo hor iskeeni maayo ka qaybgeli maayo wacyigelinta ma soconayso wacyigelinta socota dhalinyaro way cudurka wax ku dhacay dhalinyaro wax u sheegi karta dhalinyaro wax u sheegi karta kullu dayrin yadiru ma'a janaahi kuwa isku mid yihiin ayay qol la saduula idinka wax isku sheegi kara imaada miidiyada imaada diyaar ay idin tahay miidiyadu inay codkiina duubto imaada front line-ka gobolka taga degmooyinka taga difaac dadka wax u sheega waa la ogyahay waxa la isku sheegayo maanta waxaan leeyahay marka dhalinyaradu ha noqon dilaaga qarsoon noqo badbaadiyaha ku istaagaya badqabka ummadiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.